yaa weeye wiilkan yar ee qaybta dambe ee jirkiisu ay go'an tahay ee aayadaha qur'aanka ah ku furfuray woolkaabka ka furmay waddanka Qatar. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني maxay tahay qisada wiilkan yar ee aadka maanta looga hadalhayo caalamka gaar ahaan warbaahinta Carbeed. Ghanim al-Muftah ayaa ka soo dhex muuqday garoonka Al-Bayt oo ay ka furantay ciyaartii koowaad ee woolkaabka ee waddanka Qatar ka furantay isagoo weliba ag fadhiya aktarka adduunyada caanka ka ah ee Morgan Freeman. Ghanim al-Muftah ayaa wuxuu dhashay waddanka Qatar wuxuuna dhashay sanadkii 2002 waxa uuna la dhashay xanuun dhif iyo naadir ah kaas oo ay qabaan kaliya 25,000 oo qof oo adduunyada ku nool. xanuunkan ayaa ah in qofku uu dhasho isagoo qaybta dambe ama qaybta hoose ee jirkiisa ay ka maqan tahay yacni nus ka mid ah jirkiisa ayuu la dhalanayaa laakiin wiilka nolosha isma uusan dhiibin muuqaalo uu horay u lahaana waxa uu ku sheegay inuu ilaa yaraantiisii baran jiray inuu naftiisa ku faraxsanaado waxa uuna yidhi aad baan ilaahay ugu xamdinayaa sida uu ii abuuray ee ah في أحسن تقويم أيان أو صبر سنها وحنا شيء dadku in aysan isku hawlin in ay isku dayaan in ay bedelaan wax aysan awood u lahayn in ay bedelaan wiilkan yarka ayaa hore loogu magacaabay in uu noqdo safiirka woolkaabka waddanka Qatar ka furmay markii loo magacaabay safiirnimadiisana waxaa soo dhaweeyay oo u hambaleeyay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA wiilkan yarka ah ayaa dhiirigelin iyo ku cibro qaadasho u ah qof walba oo nool waliba dadka caafimaadka qaba ee lixdooda lixaad qaba wiilkan yarka isagoo kala bar jirkiisa ay ka maqan tahay ayuusan isdhiibin oo noloshii la halgamay ilaa uu heer sare gaaray maantana wuxuu aayadaha quraanka kariimka ku furfuray woolkaabka waddanka Qatar ka furmay su'aal yar oo kooban adigu qarankee ayaa is leedahay waa uu qaadayaa woolkaab ka furmay waddanka Qatar